filimkan waxa uu ku bilaabanaya daray hooyadiisa ayadoo u safraysa Shiinaha maadaama shaqadeeda xaggaas loo wareejiyay asagana waxa uu ka tagayaa saaxiibadiisa iyo deriskiisa garoonka ay aadayaan kadib markii uu saaxiibkiisa siiyay baalka lagu ciyaaro oo lagu hala saarto ugu dambeyntii daray iyo hooyadiisa waxa ay gaarayaan Shiinaha intii wadada ku sii jireen waxay arkayaan magaalo loo diyaariyay Olombikada in lagu qabto guriga ay tagi lahaayeen markii ay tageen naagtii degneed ayaa waxa ay siinaysaa furaha waxa ay ku dhaysaa hadii aad u baahantiin waxyaabo dheeraad ah waxa la hadli kartiin Master Han maxay luqadiisa Ingiriiska waa ay fiican tahay markay guriga gali maagtan waxa ay fiirinaysaa dhulka waxa ay ku arkaysaa jaakada wiilkeeda daray kadib markii uu iska siib waxa uu ku tuuray dhulka sida caadada ahayd ayadana hab ay siinaysaa waxa ay ku dhaysaa jooji mar damba ha ku tuurin dharkaaga dhulka kadibna wiilkeeda waxa ay ka dalbanaysaa inuu hoos u degto si uu Master Han ugu waco si uu ugu hagaajiyo tubada uu deganaya sidii uu u raadinayo ugu dambeyntii waa uu helayaa waxa uu ku dhahayaa waxaan ahay dadka degan 305 waxaan u baahanaa in loo hagaajiyo tubada guriga bis waxa uu arkaya Han oo badan cunayo waxa uu isdhahayaa markale u soo laabo kadibna daray waxa uu iska aadayaa beerta u dhaweyd gurigiisa meeshasna waxa uu ku baranayaa saaxiibo kadibna waxa uu aadayaa oday duq ah oo ciyaaraya kaligiisa darayna waxa uu ku fikirayaa ninkan inuusan aqoonin ciyaarta waxa uu rajaynayaa inuu ka guuleysan doono bis hal mar waxa uu ka warhelayaa ninka inuu ku fiican yahay ciyaarta ninkan waxa uu ka dhalinayaa goolal badan asagana ma awoodaya xataa inuu hal gool dhaliyo daray waqtigiisa oo dhan waxa uu bilaabayaa inuu fiiriyo gabar fadhisay beerta dhexdeeda oo meesha wax ku baranaysayne waxa uu go'aansanaya hal mar inuu u tago oo bartane ilaa markii dambe uu ka imaaday wiil kale waxaan uu cadaanays inuu wiilkaas xiriir kala dhaxay gabarta uu jeclaaday asagana waxa uu ku dhahayaa maxaa uu la hadlaysaa wiilka ma casharkaaga baratid wuu ku xanaaqayaa waxa uu qabsanaya waraaqada waxa uu ku tuurayaa dhulka darayna waxa uu isku dayayaa inuu soo dhax galo laakiin si wiilka ayaa qabanaya waxa uu ku tuurayaa dhulka ayuu ka soo kacaya waxa uu isku dayayaa inuu garaaco bis daray ayaa noqonaya qofka la garaacay xataa ma awooda inuu taabto wiilka jirkiisa waa la garaacaya ilaa markii dambe uu awoodi waayo xataa inuu lugihiisa ku istaago intaas kadibna waa ay ka tagayaan asagana waqti dambe ayuu ka kacayaa gurigiisa ayuuna aadayaa waa uu dhudhuumanaya waxa uu galayaa qolkiisa walibana asagoo ooynay oo xanuunsanay si aysan hooyadiisa u arkin waxa la gaarayaa maalinkii xigay darayna waxa ay u ahayd maalinkii koowaad oo aaday iskuulka waxa uu isku dayayaa inuu dhaawacyada jirkiisa ku qariyo make up ka hooyadiisa kadibna waxa uu gashanayaa koofi si aysan hooyadiisa u arkin aysan u dareemin iskuulka ay gaarayaan maamuladana waa ay sugaysaa si ay u soo dhaweyso waxa ay ku dhaysaa daray waa mamnuuc koofi in lagu gashto iskuulka hooyadiisa ayaa ka siibaysa waxa ayna arkaysaa make up ka u marsan waxa ayna dareemaysaa in wajigiisa dhaawacay ay ku yaalaan waxa ayna weydiinaysaa qofka qaraacay si ay ehelkiisa ugu dacwooto asagana waxa uu ku dhahay anigoo socda ayaa bir ku dhacay sidaas ayaana kaaga qari ina aragtid daray iskuulka ayuu galaya waxaan u imaanays gabartii uu ka helay waxa ayna ku dhahaysaa magacayga waxa la dhahaa May waxa ayna ka raaligelinaysaa wixii uu ku sameeyay Jay asagana waxa uu weydiinayaa xiriirka kala dhaxeeya asaga iyo ayadana waxa ay ku dhahaysaa anaka manihiin saaxiibo laakiin qoyskan ayaa isku dhow iyo inay caruurnimadooda isbarteen way ka tagaysaa si ay ugu sii tababarata kamanka ilaa markii dambe maalinkaas uu iskuulka sidaas ku dhamaaday waxa uu ku laabanayaa daray gurigiisa waxa uu isku dayayaa inuu kartayga TV ka barto si uu u awoodo inuu garaaco Jay waxa uu arkay Master Han oo albaabka taagan waxa uu u imaaday inuu hagaajiyo biyaha kulul waxa uu arkayaa asagoo u tababaranaya si qalad ah hooyadiis ayaa banaanka ka soo laabanaysa waxa ayna arkaysaa wiilkeeda oo sida caadada ahayd jaakada si qalad ah dhulka ugu tuuray way ku qaylinaysaa maxaa yeelay wax ka badan 100 jeer ay dhehday ka qaad dhulka jaakadaada dhulka ayuu ka qaadayaa meel ayuu nasurayaa waxa uu arkayaa inuu Han fiirsanayay daray iskuulka ayuu tagayaa maalinkii xigay waxa uu arkayaa Jay iyo saaxiibkiis inay daba socdaan waa uu ka fogaanayaa si aysan u garaacin markale waa uu ka cabsaday ilaa markii dambe uu ka gaaray saaxiibadiis May qolka ay ku tababaraneysay waxa uu maqlayaa macalinkeeda oo ku dhahay waa laazim inaad sii tababaratid xataa waqtiga fasaxa si kaman garaaceeda uu u fiicnaado markii uu macalinka ka tagana meesha daray ayaa u tagay waxa uu ku dhahayaa garaacidaada waa ay fiican tahay waxa uu weydiinayaa sababta ay u tababaranayso ayadana waxa ay ku dhaysaa waxa rabaa inaan galmacadka muusikada lagu barto kadibna waa uu ka tagayaa waxa uu ka baxayaa masraxa bis hortiisa waxa uu ku arkayaa Jay oo taagan waxa uu ka qaadayaa boorsada dhulka ayuu ku dhufanayaa waxa uu ku dhahayaa ka fogo ayada hadii kale waxa kugu dhacay wixii kugu dhacay oo kale kadibna waa uu ka tagayaa markii uu guriga tagana hooyadiis ayuu soo raacaya intay wadada ku sii socdeenna waxa ay arkayaan iskuul weyn oo lagu bartana kufuuga asagana waxa uu go'aansanaya inuu galo si uu u soo fiiriyo sida ay u tababaranayaan maxay asaga waxa uu rabay inuu barto sida uu ku dili lahaa Jay kadibna waxa uu arkayaa koox kale oo tababaranaysa oo shacaarkooda uu ahay ha una xariisanina hana u dhimrinina cadawgiina intuusan gelinna uu la hadlinna waxa uu arkayaa inuu Jay yahay mid kamid ah ardayda waxa uu ka laabanayaa hadalkiisa waxa uu aadayaa iskuulka banaankiisa Han gurigiisa hortiisa ay istaagayaan waxa ay rabtay hooyada inay weydiiso wiilkeeda waxa uu ka cabsanayo asagana waxa uu ku dhahay aniga wadankan waan nacay waxaan rabaa inaan ku laabto wadankayga meesha ma jecli hooyadana waxa ay ku dhaysaa meeshan waa qasab inaan joogno wada kale nooma banaano waana laazim inaan la qabsatid labadoodana kadibna waxa ay go'aansanayaan inay galaan gurigooda Hanna waxa uu ahaa mid maqlaaya wax kasto maalinkii xigay ayaa la gaaraya darayna waxa uu ardayda iskuulka u raacaya magaalada xaraamta ahayd maxay magaalada magacaas waxa loogu baxshay boqorkii ka tali jiray ayaa ka xarimay dadka inay soo galaan bis markii uu dhintay waxa ay noqotay meel ay dadka u soo dalxiis tagaan Jay waxa uu isku dayay inuu dhibo daray inta dalxiiska lagu jiray ilaa markii dambe ay dib ugu laabteen iskuulkooda darayna waxa uu go'aansaday inuu ka argoosto wuu u soo dhawaanaya asagoo dhudhuumanaya waxa uu ku tuuraya biyo wasaqaysan kadibna waa uu ka cararayaa ayaka dhanna waa isoo bursanay asagana waxa uu isku dayay inuu ka cararo
cararay ilaa markii dambe uu kasoo galay albaabka gadaale dhismaha uu degnaay bis asaga waxa uu arkay inay xiran tahay mana awooda inuu ka baxsado way qabanayaan waa ayna garaacayaan mana u naxariisanayaan Jay asagoo raba hal mar inuu ku dhufto inta awoodiisa ah waxa gacanta ka qabanaya Han wuu kala tuuraya waxa uu ku dhahay qof kasta gurigiisa ku laabta inta sameeysan ayaa idinku filan Han waxa uu aadaya dareesi uu u soo kicay laakiin Jack ayaa ku soo tuuray darbo si fudud ayuu lugta ugu qabanaya laba kale ayaa fiir ku soo ridayso asagana labadooda ayuu iskugu baneynaya ayka ayaan isdilayaan asaga wax uu sameeyay oo dhan waxay ahayd inuu iska difaaco mana uusan garaaceenin dareena waxa uu ahaa mid fiirsanaya wax dhacayo waliban asagoo dhulka yaalo oo xanuunsanayane ilaa markii dambe Han uu dhulka wada dhigay ayka oo dhan darey ayuu soo kicinaya waxa uu keenaya qolkiisa si dabka ugu daaweeyay dhaawacyada soo gaaray jirka darey markii Han uu dhameeyay darey waxa uu dareemaya in jirkiisa uusan xanuun ka dareemeynin darey waxa uu weydiinaya sidee ku awooday in carruurta soo dhan iska dhicisid waxa uu ka dalbanaya inuu baro kufuga si uu iskaga celiyo Jack Han waxa uu ku dhahay kufuga waa xirfad aqooneed oo difaac ah mana ahana dagaal iyo dhibaato dareyna waxa uu ku dhahay sidaas ma ahan ayaka macalinkooda waxa uu baray inuusan dadka aysan u naxariisanin Han waxa uu kula talinaya in macalinkooda uu tago uu ku dacweeyo bis darey waxa uu ka baqay in kaligiisa uu tago kadibna la garaaco waxa uu ku dhahay iraac Han bilawgii hore waa uu ka diidaya kadib fikir dheer kadibna waa uu ka ogolaanaya inuu u raaco iskuulka kufuga waxa uu rabay inuu carruurta sida uu u tababaray macalinka inuu soo arko uu Jackna ku dacweeyo markii uu galana waxay arkayaan macalinka oo garaacay cunug yariis ah kadib markii uu awoodi waa inuu dilwiil yariis ah markii uu ka guuleystay waxa uu ku dhahay ma ahan inaa ka guuleystaan oo kaliya waa inaa garaacdaan cadawgiina oo nafta dhaafisan xataa inaa kala balabeysin ma ahan markii uu gadaal fiiriyana waxa uu arkay Han oo taagan Jackna waxa uu dhahay Han waa qofkana garaacay Han waxa uu imaaday in tababaraha uu ka dalbaday in ardaydiisa ay mar dambe taabaneen darey lix cunug inay hal cunug ku goobtaana waa dulmi tababarali waxa uu ku dhahay ardayda wada fadhiista Jack oo kaliya ayaa istaagay waxa uu ku amraya inuu la dagaalo darey laakiin Han ayaa diiday waxa uu ku dhahay aniga meeshan uu imaanin dagaal waa uu ka tagaya laakiin Sali ayaa waxa uu ku dhahay ardaydeeda ayaa garaacday iskuulkeegana waa duleysatay marka waa inay dhibtaa ganaaxa bis Han waxa uu ku dhahay darey hadartan qof lama dagaalamayo waxaana noo balan ah markii uu furmo tartanka kufuga saacadaas ayuu li u ogolaanaya inay bixi karaan waxa uu ku dhahayaa hadii ay ka soo qayb gali weysin tartanka kufuga waxa ardaydeedu ku amraya inay dili karaan aysan u naxariisanin darey kadibna ardaydiisa oo dhan waxa uu ku amraya inaysan taaban karin darey inta laga gaarayo tartanka kufuga darey iskuulka ayuu ka soo baxaya Han ayaa waxa uu ku dhahayaa waxaan ku wada laba arinta koowaad oo farxad lehna waxa ay tahay Jack mar dambe ku taaban doono mid kalena waxa ay tahay waxa ka qayb gali doonta tartanka kufuga waxaana la dagaalami doonta ardaydaas oo dhan hadartana waxa rabaa inaan ku baro kufuga dhabta ah darey maalinkii labaad ayuu u imaanaya Han si uu u bilaabo tababarka kufuga waxa koowaad uu darey sameeyay markii uu imaaday waxa ay ahayd jaakadiis inuu siibo oo dhulka ku tuurayne waxa uu ku dhahayaa Han waxa uu imaaday inaad tababarto waxaana diyaar u ahay inaad barto kufuga sidoo kalena ay u bilaaban tahay kufuga uu yaqaanana xoogaa kartay ah kala foota ayuu hortiis ku dheelaya laakiin Han madanina hadalkiisa waxa uu ka dalbanaya inuu soo qaado jaakadiisa uu surana meel kadibna waxa uu ka dalbanaya inuu gashto uu siibana kadibna uu tuuro oo soo qabsadana uu suro maalinka oo dhan inuu sidaas sameeyo habeenkii markii la gaarana darey waxa uu ku soo laabanaya gurigiisa asagoo daalan oo wax soo baraninne laakiin jaakadiisa ayuu suraya katabaanka hooyadiisna waa ay la yaabaysaa maxayla waa markii koowaad uu suraayo xaaladaas ayuu ku jiraya maalin kasta markii uu soo kaco waa uu sameynaya tababarka ayuu u sii wadaya Master Han ilaa markii dambe ay ka imaatay hooyadiisa ayna ka dalbatay in wiilkeeda ay u wadi karto bandhig lagu qabanayo magaalada sidoo kalena ay Han u keentay ticket calshan si uu u raaco waxa ayna ku dhahaysaa managa diidi kartid midaas dhammaantood waxa ay aadayaan bandhiga la qabanayay mayna bandhiga ay joogtay waxa ayna la kulmaysaa darey waxa ayna u ballan qaadaysaa inay ka soo qayb gali doonto tartanka kufuga uu gali doono sidoo kalena asagana uu ka soo qayb gali doono tartanka masraxida ee gali doonto sidaas ayayna isku waafaqayaan labadooda darey maalinkii xigay waxa uu aadaya guriga Han waxa uu u tagaya asagoo hagaajinaya gaarigiisa Han waxa uu ku dhahayaa guriga sidee ku soo gashay anigoo waliba ku idmin inaad soo gashid waxa uu ku dhahayaa banaanka tag aniga ayaa ku ogolaanaya kadib soo gal kadibna waa uu soo galaya waxa uu bilaabaya inuu jaakadiisa dhulka dhiga kadibna uu ka soo qaado uu suro oo gashtana ilaa markii dambe sabarka uu ka dhamaaday darey waxa uu dhahayaa waan bartay waxaana rabaa inaan barto kufuga maxay kun jeer ayaa suray dharkayga meel jaakadiisa ayuu qaadanaya waxa uu rabay inuu aado gurigiisa Han ayaa u wacay waxa uu ku dhahayaa horteeda istaag jaakada ayuu ka qaadaya waa uu ka tuuraya waxa uu bilaabaya inuu baro in gacantiisa xoogaa ay awoodeysatay kadib markii uu tababarka sameeyay muddo dheer taasna waxay ahayd mid looga baahan yahay kufuga dhexdiisa kadibna waxa uu bilaabaya inuu ku tababar sida uu lugihiisa ku dhaqaajin lahaay hal mar ayuu ka dalbanaya inuu dhulka ka soo qaado jaakada isla markaas ayuu darbe ku soo ridaya asagana gacanta ayuu iskaga dhigaya dareyna waxa uu fahmaya inuu asaga sidaas ku baranayo xarakaadka muhiimka ah waliban asagoo dareemeynin uuna ku baranay waxyaabo basiid ah oo maalin kasta uu sameyn karay kufugana uu ku jiro wax kasta oo la qabanayo maalin kasta qofkii uu isticmaalana sida saxan ayaana dareemaya qiimihiisa Han waxa uu u kaxeynaya meeshii aabiis uu ku tababari jiray markii uu yaraay si wadajir ah ayay u safrayaan ilaa markii dambe ay ka gaareen Han waxa uu ku dhahayaa waa inaan tagnaa meesha ugu sareysa si aan u soo cabno biyaha meeshaas yaalo waxay bilaabayaan inay jaranjarta fuulaan ilaa markii dambe ay ka gaareen meesha ugu sareysay darey hortiisa waxa uu ku arkaya naag hortaaga mas oo waliban madaxeeda nuuxinaysa waliban asagoo qaniineynin waxay fiirinaysa indhihiisa waliban madaxeeda ayadoo nuuxinaysa waa uu ka daba nuuxinayay darey iyo
Han way soconayaan ilaa markii dambe ay ka gaareen meesha ay biyaha yaalaan. Darey biyaha ayuu cabayaa kadibna waxa uu weydiinayaa sidee naagta ku awooday inay madaxeeda nuuxiso maskana ka daba nuuxsado. Asagana waxa uu ku dhahayaa maska waayo qofka ka daba deysana ayada ayaana xukumaysay maxaa yeelay waxa ay awooday in maska ay leexisay ay xukuntane. Han waxa uu bilaabaya inuu Darey ku tababaro meeshii uu ku tababarin jiray markii uu yaraay. Kadib maalin dheer oo tababar ahna waxa uu ku soo laabanayaa Darey gurigiisa maskii uu soo dhex arkayna madaxiisa ayuu ku dhex wareegsanaya waa uuna la yaabanay. Ugu dambeyntiina buug ayuu ku sawirayaa maska waxa uuna bilaabayaa tababarkiisa inuu sii wato. Han waxa uu barayaa noocyada kala duwan uu leeyahay kuufuga. Dareyna waxa uu ku tababaranayaa meel kasta uu tago ilaa markii dambe Han uu ku dhahay bari waxa tahay fasax maxaa yeelay tababarka badan waxa laga yaabaa inuu dhibaato ku geysto. Maalintii xigay waxa uu tagayaa iskuulka waxa uu ogaanayaa saaxiibadiis may bandhigeed inuu yahay bari mayna ayadoo naxsan ay istaagsaneed waxa ayna ka baqaysay inay guul dareysato. Dareyna niyadda ayuu dhisaya waxa uu ku dhahayaa bari qaad hadii kale waa ku waalanaysaa maxaa yeelay tababarka badan dhibaato ayuu keeni karaa waana sida uu u sheegay Han. labadoodan iskuulka ayay ka baxayaan ayagoo cararaya waxa ayna wada qaadanayaan waqti fiican waxayna ahaayeen kuwa faraxsan ilaa markii dambe aabaheed uu soo wacay gabarta waxa uu ku dhahayaa bandhigaaga waa la soo hormariyay waxa uuna dhici doonaa hal saac kadib. meeshii joogta ay ugu imaanaya waxa uuna ku kaxinayaa gaarigiisa si dhaqsi leh si uu u geeyo iskuulka. Dareyna waa uu ka soo daba cararaya ilaa markii dambe uu ka soo gaaray iskuulka si uu u dhiirigeliyo ayada maxaa yeelay balan ayuu ka qaaday meesha ayuu gelayaa waa uuna fadhiisanayaa. markii ay dhameysan asaga kaligiisa ayaa u sacbinaya kadibna aabaheed waxa uu ka dalbanaya inaysan mar dambe la hadlin wiilkaas waxa uuna ku dhahayaa u tag waxaana ku dhahdaa mar dambe ma noqon karna saaxiibo. hadalka aabaheed ayay fulinaysaa welibana ayadoo dhibsanayso. Dareyna waa uu ka murugoonayaa midaas bedelkii uu aadi lahayna gurigiisa waxa uu aadayaa guriga Han waxa uu arkaya Han oo xanaaqsan oo jajabinaya gaarigii uu hagaajinayay maalmahaas oo dhan waxa uu bilaabaya inuu ka celiyo uu dajiyene waraaqada dul saarneed ayuu qabanaya waxa uuna arkaya inay ku dhinteen gaarigan cunug iyo hooyadiisa waana Han qoyskiisa waxa ayna shil ku galeen gaarigan sanado badan ka hor. Hanna waxa uu bilaabaya inuu u sheekeeyo maanta kale waxaan saarnay gaarigan waxaana waday qoyskayga ilaa markii dambe meel sare ka soo gaaray roob xoogan ayaana da'ay naagtayda ayaana isdagaalnay ilaa markii dambe xanaaqa uu iga tarabatayna ana awoodi waa inaan kontaroolo gaariga aan ka galayna shil sanad kastana uu hagaajiyay gaariga markii la gaarina waqtigii ay shilka galeenna uu jajabiyo waxa uuna dareemaa dembi iyo murugo waa uuna ooyaa markaas ilaa markii dambe Darey uu ka soo qaatay ushi uu ku tababarayay Han. Hanna waa uu qabsanaya gaariga ayuuna ka soo dhex saarayaa. maalinkii xigayna darbiga shiinaha ee dheer ayay wada aadayaan si wada jir ah. Darey ayuuna meeshaas ku tababaraya waxa uuna dareemayaa xirfadiisa kuufuga inay soo ficnaatay xoogaa mayna waxay ahayd mid ka cabsanaysa Darey inay la hadasho maxaa yeelay waxa ay ka baqaysay in aabaheed uu ciqaabo. maalin kastana asaga ayaa soo doonay si aysan waqti ugu helin ay kula hadashana Darey. maalin Darey waxa uu tagayaa hoolkii ay ku ciyaari lahaayeen kuufuga. Hanna waxa uu ku dhahayaa muhiim ah inaad guuleysatid ama aad guuldareysatid muhiimadana waxa ay tahay dadka ka soo qaybgalayaasha inay ka helaan dhaqankaaga ayna ku ixtiraamaan maalinkaas kadibna waxa uu hadiyad ahaan u siinaya dharka kuufuga. Dareyna waa uu u mahad celinaya waxa uuna ku dhahayaa waxa tahay saaxiibka ugu fiican ee soo maray hab ayuuna siinayaa kadibna waxa uu ka dalbanaya inuu ku caawiyo hadalka uu ku dhihi lahay may aabaheeda si ayada ay ugu soo qayb gasho kulanka kuufuga. intaas kadibna Darey waxa uu tagayaa guriga may kadib markii uu soo akhriyay hadalkii uu u soo qoray Han waxa uu ku dhahayaa aabaheed welibana asagoo la taagan ayada waa saaxiibadeeda qaaliga ah anigana waxaan u noqon doonaa saaxiibka ugu fiican waana haddii aad u ogolaatay inay ka soo qayb gasho tartanka kuufuga. aabahana gabartiisa uu u ogolaanaya inay tagto ay soo daawatana tartanka uu geli doono Darey. waxaa la gaarayaa waqtigii ciyaarta ay bilaabo lahayd laakiinse Han muusan aqoonin xeerarka u yaala ciyaarta. Han waxa uu ku dhahayaa haddii ay heshid 2 dhibic waa guuleysanaysaa muhiimadana waxa ay tahay 2 mar oo kaliya inaad qofka garaacdid. Darey qofka koowaad ayuu u bixi maagaa laakiinse waa uu ka cararaya waa uuna ka baxaya meesha. Albiterana waxa uu ku dhahayaa marka koowaad waayo haddii mar kale aad ka baxdidna waxa weyn doontaa 1 dhibic. Darey ciyaarta ayuu sii wadanaya kadib markii uu la qabsadayna waxa uu ku guuleysanaya ciyaartii koowaad. ciyaartana waa ay sii soconaysaa. Jaagna tartamayaasha kale waxa uu la dagaalamay si xun waxa uu dilay qofka ka soo horjeed intaysan jirkiisa u taabanin waana sida uu u tababaray macalinkiisa. Darey ugu dambeyntii waa uu soo baxay waxa uuna noqonayaa dadka ugu sareeyo waxa uuna la dagaalamaya saaxiibada Jaag mid kamid ah waa uuna ka guuleysanaya waxa uuna u gudbayaa finaal uu eke May iyo cideeda iyo hooyadiisana waxa ay ahaayeen kuwa dhiirigelinaya asaga. Hanna waxa uu ku dhahayaa qaybtan si aad u guuleysatid waa inaad heshaa 3 dhibcood. ugu horeyntii Jaag ayaa dheelay waxa uuna awoodaya inuu ku guuleysto qofka la tartamayay waxa uuna u gudbayaa finaalka. Dareyna waxa uu ku soo aaday qof kale oo kamid ah kooxda Jaag bistow barali waxa uu ka dalbanaya inuu lugta ka jabiyo si uusan u guuleysanin. wiilkiina waxa uu awoodaya lugta inuu ku dhufto Darey uuna ka jabiyo taasna waxa ay sabab u noqonaysaa in wiilka ciyaarta laga saar maadaama uu dheelay ciyaar sharci dara ah. Dareyna sidaas ayuu finaalka ugu soo baxaya welibana lugtiisa ayadoo jab uu ka Darey dhakhtar ayaa loola cararaya waxa uuna dhahayaa dhakhtarka ma ahan inuu wiilkan ka qayb galay ciyaarta bis Darey waxa uu ka dalbanaya Han inuu u sameeyo dabkii uu sameyn jiray si uu u awoodo inuu istaagi karo oo kaliya asagana uu adkeysan doono xanuunka uuna dhameystiran doono ciyaarta. Hanna waxa uu ku dhahayaa adiga maxaa u dagaalamaysaa inta ka badan maxay dadka waa tustay inaad tahay qof awood badan. Dareyna waxa uu ku dhahayaa ilaa hadarta aniga Jaag waa ka cabsanaya marka waxa rabaa inaan jabiyo cabsidaas inta cumrigay inta ka dhiman aan ahaa lahay qof cabsi badan. Hanna hadalkiisa ayuu maqlayaa waxa uu u sameeyay dabkii uu sameey jiray oo xanuunka baabi'inayay. Li waxa uu ku jejeesay Han kadib markii uu imaan waayay Darey waxa uu ku fikiraa inuu asaga ku guuleysan doono koobka bis Darey ayaa mar kale ku soo laabanaya garoonka. ciyaartii u dhaxaysay Darey
iyo jack ayaana bilaabanayso waan ciyaartii ugu dambeysay oo finaalka ahayd darey waxa uu iska difaacaya darbooyinkii ugu badnaa ee lagu soo riday ilaa markii dambe jack uu la helay darbo uu ku tuurayna banaanka sidaasna uu ku helay hal dhibic dareyna waxa uu awoodaya wareegii labaad inuu si dhaqsi leh ku soo ceshto hal dhibic sidoo kalena waxa uu awoodaya inuu hal dhibic ka sara maro natiijadana waxa ay noqonaysaa laba dhibic oo darey leeyahay iyo jack hal dhibic uu leeyahay saacadaasna Lee waxa uu ka dalbanaya jack inuu u imaado waxa uu ku dhahayaa lugta ka jabi jack soo mar dambe u istaaginba jackna saacadaas waxa uu bilaabaya inuu lugtiisa weydaysto oo kaliya wada sharciyeysan ayuuna lugta ugu dhufanaya dareyna waa uu xanuunsanaya sidaas ayuuna ku soo qabanaya waxa ayna noqonayaan barbardhac qofkii helana hal dhibic waxa uu noqonaya qofka guuleystay dareyna waa uu istaagaya waliban asagoo ka baqaa in ciyaarta laga saaro Leena waa uu la yaabaya kadib markuu arkay darey oo awoodi kara inuu istaago waxa uu u istaagaya darey sida ay u istaagaysa naagtii tababareysay maska oo kale jangi ayuuna u fiirinaya sida ay u fiirinaysa maska oo kale si uu xukumo uu u ogaado meesha uu ka soo weerar rabo markii ugu horeysay uu jack soo weerarayna waxa uu awoodaya inuu u gambiyo kadibna waxa uu dheelaya kala footo waa uuna dilayaa sidaas ayuuna ugu guuleysanaya waxa uuna helayaa dhibicdii saddexaad dadkoo dhanna waxa ay bilaabayaan inay u sacbiyaan ayna ku dhiirigeliyaan midaas jack ayaa qabsanaya koobka waxa uuna gacantiisa ku siinaya darey waliban asagoo ixtiraamayo ardaydii oo dhan ayaana salaan u saarayso darey waxa uu ku guuleystay koobka kadib markii macalinkiisa ixtiraamka badnaa uu baray muuqaalkan waxaa qoray kabtan maajid waxaan codeeyay cabdilxaliim cali waana aniga waxaa habeeyey oo adhidgareeyeen isla kabtan maajid haddii aad ka heshay muuqaalkan ha iloobin inaa laag saartid kuna soo birtidna youtube-keena khulaasada filimada si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan soo dhigayno filimkana waxaa lahaa karataay kid waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada soo socda maca asalaama